iyadoo toddobaadkii la soo dhaafay ay bilaabantay sanad cashuureedkii baabuurta ayaa waxaa maanta aan kula kulannay iska weyn ee ku yaala magaalada Boorama taliyaha taraafikada mudane Maxamed Daahir isagoo sheegay in ay maanta u taagan yihiin laba arrimood oo kala ah cashuurtii gaadiidka iyo dawladda hoose ee sanadka cusub ee diiwaangelinta. Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan halkan u taaganahay jidka bartamihiisa oo aragtaan iska ugu weyn magaalada ee kulmiye Harawa ayaan hor taaganahay laba arrimood oo taaganahay oo ku saabsan cashuurta gaadiidka cashuurtii dawladda hoose ee sanadka ee diiwaangelinta ayaan maanta guraynaa isla markaa waxaan digniin siinaynaa gaadiidku inay iyaguna cashuuraha bariga ee wadamaristana ay u diyaar garoobaan oo ay bixiyaan taasoo imika dalka oo dhan laga bilaabay tan dawladaha hoose iyo gabagaba maraysana waa sii gabagabaynaynaa inta ayaanu taaganahay jidka waxaan dadweynaha ka codsanaynaa sidaad awalba ugu heelanadeen cashuur bixinta ugu heelanaada cashuurta iska bixiya buugaagta baabuurta laysamada cashuurta diiwaangelinta intaba cid ay ku dhimantay inay iska bixisayaan ku codsanaynaa aad u mahadsantahay. dhanka kale waxa uu fariin u diray dadka iskala bajaajlayaasha ee u dhibay ciyaalka aan mas'uuliyadda qaadi karin in ay bajaajta u dhiibaan dad wadamarista khibrad u leh. ciyaalka wata baalaha bajaajta ciyaalka wata halistooda aad u farabadan tahay magaaladiina way ku farabateen qayr mas'uul kasta loo dhiibaya dadweynaha bajaajta leh yarlayaasha waxaan uga digayaa in ay carruurta yaryar ee qayr mas'uulka ka daystaan bajaajtooda iyo hantidooda oo ay u dhiibtaan dad xilkas ah oo garanaya habka wadooyinka loo maro si ay u yaraadaan shilalka iyo dhibaatada ay keenayaan. Cabdinaasir Ali Ilde, shabakada Sawiraha News, magaalada Boorama.